Turkigu waa dal taariikh qani ah leh, ka oo hoy u ahaa casriyo iyo kacdoonno kala duwan oo soo maray xilliyo kala gedisan. waxaana xaqiiqooyinka taariikheed iyo kuwa dhaqanba ay yihiin kuwo aan hal muuqaal lagu soo koobi karin. hase ahaatee waxaynu soo bandhigaynaa 5 xaqiiqo oo ay suuragal tahay inay kaa qarsoon yihiin. 1. caasimadda dalku waa Ankara. inkastoo inta badan dadku u aqoonsan yihiin caasimadda magaalada magaca weyn ee Istanbul astaanta Turkiga iyo caasimaddii hore ee dalka, midaasoo dadka dhagahoodu si maalinle ah u maqlaan, taasoo ka dhigaysa inay dadku u maleeyaan xarunta dawladda ee haatan. 2. jidka tareenka ee Istanbul ee dhulka hoostiisa mara. jidkan tareen waa ka labaad ee adduunka ugu qadiimsan, waxaana ka weyn jid tareemeedka London ee dhulka hoostiisa mara. jidkan Istanbul Railway waxaa la dhisay 17 January 1875. 3. soo saaridda kofeega. Turkigu waa mid ka mid ah dalalka qaaradda Yurub u soo saara kofeega. tan waa mid ay ku faraxsan yihiin Yurubiyaanku, inkastoo xuquuqdan soo saarista oo dhan aan la siin karin Turkiga, haddana soo saaridooda bunku waa arrin soo bilaabantay qarnigii 16aad. 4. hoyga beeraha. ma ogtahay in kala badh dhulka Turkigu yahay beero badankood wax soo saar leh? tanina waa mid ka mid ah xaqiiqooyinka cajiibka ah ee dalkan. caadiyan lama soo dego wax cunto ah, maaha mid soo bilaabantay shalay. taariikhda beeraha ee Turkigu waa mid ku siman 100 sano. halyeyga qaranka Mustafa Kemal Atatürk. dhammaan hogaamiyeyaasha dalkan oo uu ku jiro madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waa halyeeyada waddanka. waxaa sidoo kale jira halyeeyadii soo hogaamiyey boqortooyooyinkii Cusmaaniyiinta. hase yeeshee ninkan Mustafa Kemal Atatürk ayaa loo aqoonsaday halyeyga dhabta ah ee qaranka Turkiga sababo la xiriira inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee Turkiga casrigan, kaasoo dalka hogaaminayay 19 Oktoobar 1923 ilaa 1938 oo uu geeriyooday